السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أنت بخير تقالك كحنا كنالك يقولك شو ولا شلك شو مرة ودك سون قطيم مقال عصب سدوا صاحب القناة سبسكرايب تلايك تشير كومنت أنت بينو صارا واحد دولنا كهذا دقال كي ما أنت كده عيلاس عانود دقال كاس أولي مش يدعوا وسببي dadkii ku dhintay ilaahay ha u naxariisto intii dhaawacana ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo kulli wax la isku qabsaday waa gaari ayaa la isku haysto gaari ciidan ah haddaba wax ka hadlaya qaar kamida madaxdii SSC iyagoo sheegaya sababta ku dhacday dagaalkaas iyo waxa keenayba bal aan ku socono markaa marxaatibeek waa u sheegnay wax sababay magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimasho dhaawac sababay waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay intii ku dhaawacantay waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay u boogadhayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducada inoo aqbalo amiin ducada aynu ilaahay barinay waxaan rabaa inaan raacsiino shaqaaqadan waxa sababay gaari la isku qabsaday oo ahaa gawaaridii lagala wareegay maleeshiyaadkii Muuse Biixi waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada SSC oo dhan maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaas ah oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonto ma jiro hadii ilaahay ka dhigo wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegnay haddana waa taakiidinaynaa gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa gaadiid dawladeed buu noqonayaa caaqil ka garnaqi doona iyo isim loo goyn doonaa ma jiro hadii ilaahay ka dhigo gawaaridaasi maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaq u dirarka waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan qodobkaas isimaduna goobjoog bay ka ahaanayaan shacabkuna markhaati bay ka ahaanayaan saasana loo fulin doonaa waxaa intaa raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxa sababay saraakiil ka soo shaqeeyeen sida wax u dhacaan shaqaaqadaas insha Allah ta'ala saraakiisha ka dambeysay waa lagu la xisaabtami doonaa mas'uuliyadana way qaadi doonaan hadii ilaahay ka dhigo magaalada ka dhacay shaqaaq kaas waxa fadhiyo oo ka hadlay dagaalkii maanta dhacay wuxuu ku saabsanaa iyo sababta la isku leeyay haddaba horta dagaal wiilku ma dhashay wiil baa ku dhinta maalin walbana hooyo ku goblanta maalin walbana gabadh baa ku kurseegta maalin walbana ciyaal baa ku agoomooba dagaal faa'iidadiisuna waa dhimasho iyo khasaare dagaal waxaan ku leeyahay lagu taajir laguma noqdo laguma caafimaado laguma noolaado magaalo kuma dhisnaato dagaal waxaan ku leeyahay dagaal marka mar walba oo dagaal aad geshid waa mar walba khasaare ku soo gaadho waa mar walba dadkii kugu dhadhawaa ay ka dhintaan waa mar walba waxaan ku leeyahay wiilal yar oo dhalinyaro ay ku dhintaan bal maanta dagaalka ay waxaas oo dhalinyaro ay ku dhinteen maxaa la isku leeyahay waa gaari ay u dhinteen kumanaan qof aqliga miyay galaysaa waa may qaarna ay dhaawac u yihiin marka yacni nafti dhammayd qofka dhammaan naftiisa waxa kala weynaatay dadka gaari yar ana reer hebela ana in hebela ana in sarkaale ana in santaag ah ana gaarigan leh adu milihi wax noocaas la isku qabsaday laakiin qofkan bil aadanka ah ee xabada la dhacaysid xaqdarada xabada gula dhacaysid lagama fikirayo marka Soomaalideena waxay noqotay caadayaal qaatayaal waxa ku leeyahay danaystayaal ma fikirayaal inaga ismadhanayna inagu lahayn isku soo jeediyay dawada ka arkay xaaladdu halkay marayso oo xaalad ka hadal leh maba ahanba mar walba marka waxa muhiim ah qofkan waxaad ku dilayso ee naftu ay uga baxayso inaad eegtid ujeedkaad qofkan ku dilaysid qofna la iskama dilo waa inaad eegtaa sababta aad qofkan ku dilaysid wuxuu yahay laakiin haddaad ciyaar qofkii iskaga dishid dee aakhirana adigana ilaahay kaala xisaabtamaya marka nafti bil aadanka dhan qofka dhan ee muslimka ah ee shahaadanayay waxa kala qiimo weyn gaari yar amba qabiil hebel ayaa atoorayaala ayaa dadkii kala qiimo weynaataba haddaba annaguna haddaan dumar nahay beelo gubooyin baan nahay horta dumar haddaan nahay dabkaanu shidnaa weligii maba qaboobaba dawlado dhan baan ku dhisnaa dawlado dhan oon ku duminaa baroorteeda laakiin fiimo quujo waxaan leeyahay fiimo quujay baroortaada yarada iska siraado oo dadkan kala qabooji ilay waxaan ku leeyahay dadkan kala qaboojina reer macaan
barorta diyaaradku duraanagu dumar hadaan nahay oyno waxaas in la sacaanood maanta halka istaagto waxa ka dambeysay fiimo quujatay ilaahay marka laga cabsado fiimo quuja barorteedii ayaa kumanaanin u dhinteen marka waxaan leeyahay dumarkuna meeshii ku jiraan horta meel qabowdaba ma ahanba meel qabowda maba ahanba dabka israadana abidinta ay maba qabowba marka anagu dumar hadaan nahay waxna waan dhisi karnaa waxna daqiiqadan ku dumin karnaa waxna daqiiqadan ku dhisin karnaayo daqiiqadan waxaan ku dumin karnaa si walba ha haato ilaahay khaatimada khayr ha inoogu dhamo insha Allah billahi kariim dadka ku dhintaan ilaahay ha u naxariisto inta dhaawacatana ilaahay caafimaad degdeg ah ha siiyo idukuna aad iyo aad baa maasantiin muuqaalkana kala inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo subscribe-tan ha la isku saaro like share comment-ga inta baa ilowna saaxiibayaal yaaciya magaalada ka dhacay shaqaaqo iyo isku dhac ciidan oo dhimasho dhaawac sababay waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo shaqaaqadaas intii ku dhimatay intii ku dhaawacantayna waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay u boogadhayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducada inoo aqbalo ducada aynu ilaahay barinay waxaan rabaa inaan raacsiino shaqaaqadan waxa sababay gaari la isku qabsaday oo ahaa gawaaridii lagala wareegay maleeshiyaadkii Muuse Biixi waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada SSC oo dhan maanta wixii ka dambeeya gaadiid noocaasa oo lagu garnaqsan doono ama lagu wada hadli doono ama qolo sheegan doonto ma jiro haddii Ilaahay ka dhigo wixii gaadiida ee dagaalada lagu soo qabto horena waa u sheegnay haddana waa taakiidinaynaa gaadiidkaas wuxuu noqonayaa gaadiid maamul buu noqonayaa gaadiid dawladeed buu noqonayaa caaqil ka garnaqi doona iyo isim loo goyn doonaa ma jiro haddii Ilaahay ka dhigo gawaadhidaasi maanta ka dambeeya wixii gacanta soo gala ciidamada xaquudirarka ah waxay noqonayaan gaadiid iyo hub maamul bay noqonayaan hub iyo gaadiid maamul bay noqonayaan qodobkaas isimaduna goobjoog bay ka ahaanayaan shacabkuna markhaati bay ka ahaanayaan saasaana loo fulin doonaa waxaa intaa raacda shaqaaqadan isku dhaca kan waxa sababay saraakiil ka soo shaqeeyay in sidan wax u dhacaan shaqaaqadaas insha Allah ta'ala saraakiisha ka dambeysay waa lagu la xisaabtami doonaa mas'uuliyaddana way qaadi doonaan haddii Ilaahay ka dhigo